Hablaha Hrumarinta Burco habla muxsiniin isla markaasina ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa waxay maanta dharkii ciida gudoonsiyeen 470 qoys oo qoyskiiba uu ka kooban yahay 4 qof dadkaasi oo isugu jira agoomo danyar iyo waliba dad waaweyn kuwaas oo awoodin inay farxadda ciida la qaybsadaan walaalahooda muslimiinta ugu horeyntiiba waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha Hablaha Hrumarinta Burco Hodan Cismaan Maxamed iyo sidoo kale xubno ka tirsan ururkaasi waxaana kamid ah hadaladoodii maanta ugu ku sheegaya ummadda reer Burco inay hablii horumarinta Burco sidii caadada ahayd iidsiintii ciida carafo ay kaga qayb qaateen inay iidsiiyaan dad masaakiin oo ay ka soo qoreen daafaha magaalada ama magaalada dhexdeeda horta roobku ma wada gaadho ummadda ilaahay shubaa sida darteedna wixii awoodeeda ahayd waa dadkan u garanay inay yihiin dad u baahan baahi badan baa jirta laakiin intii anaga awoodeeda ahayd intaas ay ahayd waxaananu iidsiinay 74 qoys oo isugu jira caruuro qoyska ugu badan 4 caruur u qornayd ka ugu yarina 2 iyo hal u qornayd alxamdulillah weeye waxaan marka koobaad u mahad celinayaa ilaaha raxmaanka ah ee awoodda noo siiyay inaanu anaga hablaha isu tagno dabeedna wixii aan isu geynay aan ku faraxnay inaan bulshadayadii la wadaagno intii u baahnayd ayaan oran karaa waxaan si gaar ah u salaamayaa hablaha qurba joogta ah ee aan ogahay inay kaga qayb qaateen wixii karaankooda hayo wax ka badanba mar labaadna waxaan mahad celinayaa hablaha shaqeeya magaalada jooga hablaha maanta noo yimid reer Hargeysa waxaan leeyahay soo dhawaada inta Burco iyo dadkii masaakiinta ahaa ee aan sida caadada ahaan jirtay aan ciidsiin jirnay ciida rafo maanta waxa Ilaahay noo suurtageliyay inaan ciidsiino ama aan ku guuleysano maanta waxaan isugu nimay anagoo dhan hablii horumarinta Burco dhamaantoodba marka maanta waxaan noo qabsoontay sida caadada ahaan jirtayba inaan ciidsiino 470 qoys oo waayeel iyo caruurba ah dharka noocyadooda kala duwan oo aanu siinay maanta alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinay hablaha horumarinta Burco iyaguna dhankooda waxa mahad celiyay dadkii la gudoonsiyay dharkii ciida waxaana kamid ah hadaladoodii horumarinta Burco waxaan ugu mahad celinaynaa alaabta ay siiyeen halkay ka soo saaray Ilaahay khayr ugu bedelo xoogana loo barakeeyo caafimaad Ilaahay siiyo hablaha horumarinta Burco oo u mahad celinaynaa mahad Ilaahay ha siiyo darajana Allah ha siiyo caafimaad saracana Allah ha siiyo mahad weyna waa u naqaynaa Ilaahay baan u barinaa in Ilaahay caafimaad iyo darajo weyn siiya maaha markii horeysay ay caawimo soo gaarsiiyeen dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer balse xilligan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli saacado yar oo kooban ka hadhay munaasabadda Ciidul Adha Maxamed Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Wardi